wacan oo wanaagsan dhegaystayaal guud ahaan meel walba aad joogtaan oo aad naga dhegaysanaysaan kuna soo dhowaada mar kale iyo tixanaha murtida iyo maahmaahaha. tixanaha murtida iyo maahmaahaha waxaynu ku eegi doonnaa sheeko murtiyeed oo halkudhigeedu aad tahay baroorta orgiga ka weyn. waagii hore waxay dhallinyarada Soomaaliyeed hiddo u lahayd inay si dadban ama si sarbeeb ah isugu sheegaan jaceylka la soo gudboonaada xishowd awgiis. xishowdkaasi waxa uu keenay in maahmaahaha murtida iyo suugaanta inteeda kale ay ka warrama arrimaha jaceylka ku yaraadaan baaxadda suugaanta. inkastoo Soomaalida dhexdeeda ay ka jirto sida dadyooga kale ee dunida sheekooyin qarniyo ka hor oo sheegaya lamaane isjeclaaday oo u dhintay waa baayda bohliyowga caashiqa. haddaba halheeskan ah baroorta orgiga ka weyn waxay ku timid waxaa la yidhi bil baa waxaa jecel dhex maray wiil iyo gabar. muddo kadib wiilkii gabadhii waxa uu ka doontay aabbaheed wuuna u gogol fadhiistay. isla gogoshii ayuu odagii gabadhii ku siiyey wiilkii. waxaase laysku raacay in meherka iyo aqalgalka lagu beego xilliga guga oo bilo uun ka harsan tahay. iyadoo muddadii la gaarin ayaa duddadii wiilka ka dhashay dhallinyaradeedii loo kiciyey duulaan lagu qaadayay reero godob ka dhexaysay. wiilkii gabadha u dooneed dhalintii ayuu ka mid noqday. goor dambe oo dagaalkii joogsaday lagana war helay in dhallinyaradii duulaanka qaaday kuwa dhintay, kuwa dhaawacmay, kuwa jaan iyo cirib meel ay dhigeen la la'yahay ayaa kolkii la tiriyey dhallinyaradii la dilay waxaa ka mid noqday wiilkii gabadhii la siiyey. gabadhii markii ay maqashay in uu dhintay wiilkii ay iscalmadeen ayay ilmo dhabanadeedii ka soo dareertay iyadoo aan is ogeyn. wax yar ka dibna waxaa la maqlay iyadoo buf buf leh. aabbaheed oo fadhiya goob aan sidaa uga fogeyn ayaa maqlay oohinteedii. wuxuuna weyddiiyey waxa helay. kadib markay u caddaatay gabadhii in la maqlay oohinteedii ayay waxay tidhi aabbow orgiga shalay dawacada cuntay baa igu soo dhacday. odagii ayaa wuxuu yidhi maandhaay baroorta orgiga ka weyn, taasoo ula jeeday arrinta ay sheegayso iyo oohinta waxa ka keenay inay kaaf iyo kala dheeri tahay oo ay jirto arrin qarsoodi ahi. dhegaystayaal maashaa la yidhi kor waayeel waa wada indho. hase yeeshee markaan dib u milicsano waagii hore iyo waxa ay Soomaalidu ka aaminsanayd jaceylka, si kaste oo qofku u hayo jaceyl wuu ka afgobaadsan jiray erga jaceyl. bal sheeko kale aan soo qabto. waxaa la yidhi beri baa nin waxa uu sheedda ka caanshaqay gabar isagoo aan la sheekaysan oo arrintiisa u bandhigin ayuu jeclaystay inuu guursado. hase yeeshee taasi si ay ugu suurtogeli karto uma muuqan. ugu dambaystii wax uu goostay inuu gabadha u tago una sheego jaceylkiisa. balse markuu u tago hadalkii ayaa ka gurayo, wuxuu sheegana wuu garan waayaa. iyaduna lama hadasho indhaha unbay ka daawataa. markii uu 2 cisho u yimid iskana ag fadhiistay ayay gabadhii la yaabtay ninkan dhaqankiisa iyo waxa uu doonayo. isla arrintaasi waxaa aragtay gabadhii hooyadeed waxayna weyddiisay gabadheedii oo waxay tidhi naahaydhe muxuu ahaa ninka kani habeen kasta kuu yimaado ee aan kula hadlaynin? hooyo aniguba sidaad u aragtay ayaan u arkay ayay tidhi gabadhii. hooyadii ayaa markaa tidhi maxaa ninka ula hadli weeday ee waxa uu doonayo u weyddiin weeday? gabadhii ayaa waxay tidhi hooyo waan ka xishoonayaa. islaantii ayaa markaa go'aan ku gaadhay oo tidhi ii kaadi caawa markuu yimaado aniga ayaa la hadlaya habeenkii dambe markuu yimid ayuu sidii caadadiisu ahaydba iska garab fadhiistay gabadhii. markii uu xoogaa fadhiyey ayay intii islaantii u timid ku tidhi waryaahe adigu maxaa ahayd? wuxuu yidhi hooyo waxaan ahay nin waxa uu dhaqdo rabo wuxuu dhahana garan la'. halkaa ayay sodohdii oo caaqilad ahayd ku garatay ninkii waxayna siisay gabadhii. haddaba in jaceylka laga xishoodaa waxa ugu wacneed dhaqanka miyiga. lagama aqoon jaceyl oo ceeb iyo anshaxumo ayaa loo arkayey qofkii laga maqlo jaceyl ama wejigiisa laga dareemo. oo sidaa darteeda jaceylku ma qarsoomaa? dad badan sida ay qabaan maya, oo waa tan la yidhaahdo qufac iyo jaceyl midna ma qarsoomo. oo haddaba haddii uu qarsoomin ma jiraan astaamo lagu garto? inkastoo la yidhi war dhafor buu ku yaal maxaa ka mid ahi? sida ay soo ururiyeen qoraayaasha wax ka qora arrimaha jaceylka
waxa ay sheegaan fikir xad dhaaf ahi mashquul fara badan oo ku saabsan sidaad ula sheekaysan lahayd iyo hadallada aad ku dhihi lahayd qofka aad jeclaatay jeclaanta buugaagta iyo sheekooyinka ku saabsan arrimaha jeceelka riyo iyo qarow fara badan oo ah jeceel ku raaxaysiga dib u xusuusashada sheekooyinka idin dhex maray adig iyo qofkaad jecleed ka nixid qacda hore markaad aragto qofka aad jeceshahay astaamahaasi ayaa waxaa la sheegaa in lagu garto jeceelka dhegaystayaal tixanaha murtida iyo maahmaahahani maanta halkaa inoo joogto ta intaa ku kulmi doonno qayb kale Shabbat.